Bismillaahi Raxmaani Raxiim walaalahayga qaaliga soo dhawaada kusoo dhawaada janaalkeena caafimaad janaal insha Allah maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo topic muhiim ah kaasoo ku saabsan xasaasiyadda ama koroncunka ka hor intaan u galin topigeena walaalahayga qaaliga waxaan si sharaf leh idinkaga codsanayaa inaad subscribe noo saartaan gambaleelka inaad furato wuxuu kaa caawinayaa inaad ogaato video walba oo soo dhigo ood noqoto qofka ugu horeeya ee ka faa'iideysto insha Allah walaalahayga qaaliga videoga hadduu idin anfaco like noo saara share gareynta waa dhankiina commentigana waa xagiina soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaadba insha Allah waxaan rabaa sidan hore idinkugu soo sheegayba inaan ka hadlo xasaasiyadda ama koroncunka ugu horeyn waa maxay xasaasiyadda haddii uu qof xasaasiyad leeyahay waxaa suurtagal ah inuu ka jawaab celiyo tusaale ahaan wuxuu ruuxa dareemayaa diif qoyan waxaa ku adkaanaysa neefta indha cuncun ayuu yeelanayaa ama finan ka soo baxa maqaarka inkastoo tani ay tahay mid naadir ah ama mid dhif ah waxaa kaloo suurtagal ah in ruuxa kaga jawaab celiyo dareen celintu waxay noqon kartaa mid nafta halis geliso waxaana loo yaqaanaa xasaasiyadda shoogga ama ku soo boodka ah si baraad la'aan ah xasaasiyadda ama cuncunka waxa ay dhacdaa marka jirka uu ka jawaab celiyo shay waxaana jira noocyo xajiinta ama xasaasiyadda oo kala duwan kuwa ugu badan waxaa ka mid ah xasaasiyadda hawada ka dhalata sida qofka busta ama boorka oo kale ama dufta xoolaha xasaasiyadda kale waxaa la dhahaa xasaasiyadda taabashada sida qofka inuu taabto birta iyo kiimikooyinka nooca kale ee saddexaad ee xasaasiyadda waxaa la dhahaa xasaasiyadda ka dhalata cuntada sida digirta ukunta looska digaaga waxyaalahaas cuntada ayay ka dhashtaan xasaasiyadda ugu dambeysa waxaa la dhahaa xasaasiyadda ka dhalata daawooyinka qaar waxay keenaan xasaasiyad waxaa ugu badan daawooyinka loo isticmaalo gabdhaha inay isku cadeeyaan oo kale xasaasiyad ayay keenaan calaamadaha xasaasiyadda waxaa ka mid ah qofka finan inay kasoo baxaan jirkiisa oo dhan ama wejigiisa ama meel gooni ah muhiimadda waa qofka inay finan kasoo baxaan sidoo kale waxaa ka mid ah hindhiso waxaa kaleeto ka mid ah indhaha inay qofka cuncunaan sidoo kale qofka jirkiisa inuu bararo qofka inuu qufaco sankiisana biyo ama diif inuu ka imaado waa kuwaas calaamadaha ugu waaweyn haddaba xasaasiyadda sidee loo daaweeyaa xasaasiyadda ugu horeyn waxaa lagu daaweeyaa kaniinka loo yaqaano cetirizine tablet kaniinkaas miligaraamkiisa waa 10 miligram qofka wuxuu ka qaadanayaa 10 xabo hal subaxdi ah iyo hal habeenkii ah idinkugu soo celiyo kaniinka waxaa la dhahaa cetirizine tablet ama qofka wuxuu isticmaali karaa kaniiniga loo yaqaano dexamethasone tablet kan waa 1.5 miligram maalintii hal xabo ayuu qaadanayaa haddaba sidee looga hortagi karaa xasaasiyadda inaad ku dadaasho nadaafadda guud iyo mid gaar ahba intaadan cuntooyinka cunin waa inaad iska ilaalisaa cuntooyinka kugu kicin kara xasaasiyadda waxaa ka mid ah digirta waxaa ka mid ah malayga waxaa ka mid ah qofba waxaa ku kiciya dadka qaar xataa waxaa ku kiciya babayga marka waxaa muhiim ah qofka sideedaba daaweynta waxaa ka wanaagsan ka hortaga carabta waxay dhahdaa alwiqaayatu khayrun min alcilaaj oo laga wado daaweynta waxaa ka wanaagsan in laga hortago cudurkan intaa daaweyn leed waxaa wanaagsan ilaah ayaa dadka ka ilaaliyo laakiin inaad ku dadaashid cudurka inaad adiga ka hortagto waxyaalaha looga hortago waxaa ka mid ah qofka tusaale xasaasiyadda wuuba qabaabo ama way ku dhacday inuu iska ilaaliyo busta qolkiisa inuu iska hagaajiyo ama meelaha busta uu iska ilaaliyo sidoo kale waxaa la rabaa qofka daawooyinka qaar xasaasiyadda kiciyo inuu iska ilaaliyo cuntooyinka qaar inuu iska ilaaliyo waxaa jira dad oo cuntooyinka qaar tusaale ahaan ukunta ugu badan iyo malayga iyo digirta saddexdaas ayaa ugu badan qofkii waxaa arkaysaa caadi iska ahaa oo 1 daqiiqo gudood isku bedela markuu cuntooyinkaas cuno marka waxaa la rabaa qofka hadduuba xasaasiyad isku ogyahay inuu noqdo qof kontaroolan uu ahaado qof naftiisa kontaroolo si uu caafimaadkiisa u joogteeyo hadday ku kacdana labada daawo oon soo sheegay labada daawo islama qaadanayo laakiin qofba midii u fudud ayuu qaadanayaa daawooyinka waxaa la dhahaa cetirizine tab kaniinkaas waa 10 xabo ayuu ka qaadanayaa subax iyo habeen kaniinka kalena waxaa la dhahaa dexamethasone tablet asina wuxuu qaadanayaa maalinta hal xabo 1.5 miligram waaye marka walaalahayga qaaliga waan filayaa maanta xasaasiyadda ama koroncunka inaad ka faa'iideysateen insha Allah walaalihiina kale u share gareeya waxaa jira dad badan oo ku dhiban hadda adiga u baahneen waa mahadsantahay waxaa jira dad badan oo u baahan oo la dhibaataysan laga yaabo inay ka faa'iideystaan
insha allah la sheer gareeya. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.